وصلوا حروسة إلى الله puntland kortamiyaaraad iyo waajibaadka lahayd runtii waa maalin aad u weyn waa maalin ku suntan taariikhda Puntland waa koodii January 2020 oo aan rajaynayno Puntland inay ku gaarto sanadkiisa kale nabad barwaaqo deganaan horumar iyo in dawladnimadu hay'adaheedu ay tayeyntoodu ay taam noqoto haddii Ilaahay ka dhigo waxaan runtii marka ugu horeysa halka anoo ka faa'iideysanaya fursadan inkastoo horay ay dawladdu si rasmi ah tacsiyo u dirtay waxaan halka ugu tacsiyeenayaa qarixii maalin dhaweyd ka dhacay 28 bishii sanadkii tagay magaalada Muqdisho ex control oo runtii dad aad u fara badan oo Soomaaliyeed oo barmigeeda ah oo arday iyo dad shaqo u socdo iyo dad waayeel ah iyo dad caruur ah iyo dad degan oo nabad ku waabariistay lala beegsaday qarax sababay boqolaal qof wax dhintay iyo wax dhaawac waxaa nasiib darro ah qof Soomaaliyeed inuu la soo taagan yahay waxaan dilnay oo baabi'inay dad Soomaaliyeed oo barmagada ah oo aan waxba galabsan waxay u baahan tahay dadka noocaas ah dadka hor jooga waa masiibo iyo aafo ummadda Soomaaliyeed gaarna u ah guud ahaan adduunka maalmahan ka jirta dad doonayo inay magacii ummaddan sharafta u ahayd ee diinta ahaa inay intay ku soo gambadaan ummadii ku baabi'iyaan iyadoo xaq aynan u lahayn waxaan rabaa eheladii marka laga soo tago ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan dawladda Soomaaliyeed waxaan rabaa eheladii gaarka dadkaas wax yeeloobeen inaan halka tacsi u diro intii dhimatana Allah u naxariisto inta dhaawacan Ilaahay waxaan uga baryayaa in uu caafimaad degdeg ah u siiyo inta markaan uga baxo tacsidaas
runtii waxaan aad ugu mahadcelinayaa kooxihii kala duwanaa ee halka ku cabiray fanka oo ugu horreysay kooxda oo isku duuban halka ka soo jeedisay kooxda Horseed oo anu aan jeclaan lahaa kooxda Darwiish in loo baxsho oo halka ka soo jeedisay hees aad u qiimo badan oo tilmaamaysa hadafkii dowladda iyo hanaanka ay dowladdan u socoto. waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa Abubakar oo halka isaga ruuxadiisa hees qiimo weyn oo runtii aad u qiimo badan u soo jeediyey dhammaan ciidanka iyo annagaba. waxaan si gaara isagana ugu mahadnaqayaa ninkii dhalinyarada ahaa aan filayo magaciisa majaamac muu ahaa gabayaagi yarkii muxuu ahaa gabayaagi jaamac muu ahaa cabdirasaaq oo runtii muujiyey hibo waa la oran karaa. dad badan oo gabiya waan arkay laakiin gabayga siduu u cabirayo xaaladda dadka Soomaaliyeed ku sugan yihiin iyo meesha ay rabto in la gaaro iyo sida sahlan ay u cabiray oo xataa dharka aan sidano inaan dadaan hibo lagu siinay iyagu ay gaareen annaguna aan u taagannahay inaan isdilno inaan isdhacno inaan ummadda burburino. adduunkan ummadda ilaahay wuxuu u keenay inay tacmiir ku sameeyaan inay adduunka camiraan horumariyaan dhisaan. ummaduhu taas ayay ku tartamayaan. dadka Soomaaliyeed nasiib darrada iyo hoggaanimada ku dhacda waxaad moodaa in ay u soo jeesteen inay wixii yaraayo la amaamuday muddadii yarayd oo dadku dowladda ahaa in la rabo in la burburiyo. waxaan rajaynayaa dowladda Puntland siday marar badan hormuud ugu ahaan jirtay dalka Soomaaliya inay mar labaad ay hormuud ugu noqoto kacdoon dowladnimo oo ku salaysan hab dowladnimo oo saldhigeedu yahay ammaan la isku halayn karo, nidaam maaliyadeed iyo dhaqaale oo sugan, adeeg bulsho oo dhinacyadeeda kala duwan, kala dambeyn iyo midnimo lagu tiigsanayo in horumarka ballaaran ee ummadaha kala gaartay sidaan u tiigsan lahayn. wixii aan haysanno inaan tayaysano, waxa naga maqanna aan tiigsano hadba tallaabada iyo tabarta heerkayna gaarsiiso. laakiin waxaan rabnaa inaan dib u amaamudno oo dib u yagleelno hadafka dowladnimo ee Puntland leedahay. Puntland laba hadaf oo waaweyn bay lahaan jirtay oo midnimada iyo federaalka waa laba waaweyn, laakiin hadafka hadda aan rabno waxa weeye labadaas oo meeshooda taagan in la tayeeyo dowladnimadu oo ugu horreysa kala dambeynta oo ay ku xigto qof walba waxa uu sheeqanayo inuu yahay ciidan. markuu yahay inuu ciidan tababarkii tayadii la rabay leh, dowladduna ay u diyaariso wax walba uu qofkaas ku noqon lahaa ciidan. runtii dhallinyaradan maanta horteena ka muuqata waxaan uga mahadcelinayaa saraakiishii ka soo shaqaysay oo aad moodid in ay wixii loo baahnaa ay samaysay. marka ugu horreysa sida ay usoo salagtagareeyeen dhalinyaro u qaaboon ciidan qaatay tababar na tusay wixii la tababaray inay kasoo jabo keeneen annagoo og duruufta lagu sameeyey. waxaan idiin sheegayaa xukuumaddan intay jirtay ama dowladdan waa dufcadii saddexaad oo dugsigan lagu tababaro. 3 dufco oo ciidamada qaybta gobolka Bari iyo Nugaal iyo Mudug ayaa waxaa lagu kala tababaray dugsiga tababarka Carmo iyo Abqaale. waxaa hadda tababar ku jira ilaa 600 gaaraya dugsiga Xorgoble ee Qardho. waxaa hadda diyaarsan ciidamo kale oo la rabo in la tababaro. intaasoo dhan dowladda Puntland waxa ay qabatay iyadoo 1 shilin oo taageero dibadeeda aan lagu siin. waxay barbar waday inay ciidankii mushaharkoodina joogto u siiso. runtii waa wax markaan bilaabaynay xataa annagu dhiiranaan u baynaga ahayd inay sidaa u fuli karta aanan malaynayn. inaan joogtayno ciidamada hadda jira oo tayadooda aan sulugsannahay oo tiradooda aan sulugsannahay oo wax badan oo isdhexoodan ay ku jiraan ayaa waxaan goosannay waxa ay yihiin inaan ku siino. laakiin waxaan haddana daba wadnay inaan gunta wax ka soo askunno oo tababarada hoos ka soo dhisno oo ciidanka la kala hufo oo la gaaro in ciidan la isku halayn karo oo la yaqaan la helo. waxaa markii ugu horreysay dowladda Puntland si rasmi ah
ugu dhawaaqday oo ku guulaysatay tirada shaqaalaha ee dowladda Puntland oo qof walba musawir iyo cod maxaa la yiraahdaa iyo far iyo muuqaal laga qaaday oo la yaqaan oo mushaharooyinkiisii loogu shubayo account uu isagu leeyahay waxaa markaan hadda intii sanadka dhammaan bishii la soo dhaafay gabagaboobay ciidanka madaxtooyada inay kulligood iyagana biometric la mariyay mushaharooyinkoodana bishii December ay ugu dhacday accountadooda waa laba tallaabo waxaan rajaynayaa sanadkan ciidamada inta kaleeto oo ka harsan inay kulligood sidaa noqdaan labadaas haddaan ku guulaysano dalku wuxuu gelayaa hinqasho iyo hiigsi aan rajaynayno meesha uu socdo inuu gaaro cidda la rabo in lagu gaaro haani gunbay ka tolataa ciidanka ayaa saldhig u ah haddaan nabad la helin horumar lama helayo hadafkeena koowaad marxaladda koowaad waxa weeye dhisidda iyo tayeynta ciidanka waxaan halka rabaa inaan u diro dhammaan ciidamada Puntland qaybahooda kala duwan kuwa difaaca ku jira iyo kuwa xeryaha ku jira iyo kuwa shaqooyinka tooska ku jira waxaan kulligood u dirayaa hambalyo dadaalka ay qabteen dalka siday u difaaceen siday u ilaalinayaan duruufaha adag ugu shaqaynayaan waxaan u ballan qaadaynaa duruufta adkeed ay ku shaqayn jireen inaan duruuf ka fiican gaarsiino waxaan iyagana ka codsanaynaa askarta iyo saraakiisha iyo saraakiil xigeenada iyo hoggaanadooda iyo saraakiishayaashoodaba inay nagala shaqeeyaan kuwa ku dhex dhuumanaya inaysan ogolaan waxaa nasiib darro ah in dad sidaa u soo taagan oo habeen iyo maalin xabadda ku jira oo dhufayska ku jira kuwa dibadaha jira sida aan warka ku hayno kuwa aan magaalada iska laafiyoonayo kuwa gidaarada isaga qaylaya inay la xuquuq noqdaan wax la aqbali kara maaha runtii laakiin in la aqbalo idinkaas sabab ah markaa hoosta ku qarsateen waxaa qarsatid way ku qarsadaan baa lii waxaan halka uga dirayaa saraakiisha dowladdu inay ku dhiiradaan in laga suuliyo ciidanka Puntland waxa loogu yara caagla waa inay ka baxdaa meesha waa inaan helnaa ciidan aan naqaan tiradiisa waxaan diyaar u nahay dowladda Puntland iyagana inay xuquuqda ay leeyihiin si joogto ah u siiso korna u qaado midda ay maanta haystaan mid ka fiican iyadoo og tabarta dalkooda u leeyahay dowladda Puntland waxa ay hayso waa wixiini shacabkiini canshuurtii ay ka qaaday idinkii shacabka u shaqeynayeen inay nagu celo waa intaas waxa ay aan maamuleen waxaanagu aan leenahay oo insiinayna maaha wax cid kale leedahay maaha waa xuquuqdiini laakiin waxaan rajaynaynaa xuquuqdiini dadka ku ciyaaraya inaan ka qabanno intaas waa hadafka aan rabno inaan xaqiijino waxaan rabnaa inay ciidamadu noqdaan kuwa ugu horeeya ee dowladdan hadafka ay leedahay gacan ku siiya oo garab ku siiya oo kuwa diidan oo isugu jira kuwa nabadda diidan kuwa kala dambeynta diidan kuwa dowladnimada diidan kuwa rabo marka wax la saxo inay jidka goostaan oo dhahaya waxa aan sidaan wax u rabna haddaan noola yeelin waxba socon maayo waxaasoo dhan waxaan rabaa kuwa gacanta ka qaban doona inaa idinka noqotaan waxaa annaga ballan naga ah inaan dalkan madax furasho loo haysan doonin mar dambe haddaa idinka nagu garab istaagtaan mid meel istaagay iyo mid ismadoobeeyey iyo mid reero soo kaxaystay intaba kama aqbalayno horumarka dalkan oo waajib nagu ah inaan ka shaqeyno inaan uga baqno waxaan idiin rajaynayaa waxa dadka kala hagaya waa nidaamka waa sharciga waa dastuurka waa waxa la rabo in la tiigsado arrintaas waxaan rajaynayaa in dadka reer Puntland dhammaantood ay ka wada shaqeeyaan ciidan iyo shaqaale iyo shacab iyo madax qaybihiisa kala duwan waxaan rajaynayaa hadafka aan leenahay inaan xaqiijin karno dalka Soomaaliyana aan u noqon karno samata bixiyaal 30 sano waxaa la yiraahdaa dowladnimo kama hana qaadin Soomaaliya hadday Puntland intii ay samaysatay oo maamul iyo kala dambeyn ah waa looga dayday oo maanta waad ogtihiin dalkii tabartiisu wax kasta ha lahaatee waxaa ka jira maamula laakiin cadow badan uu wada haysto waxyaabaha ay ugu guulaysan waayeen waxaa iyadana rabnaa inaan tusaale ugu noqono in maamulku waxa loo dhiibay uu ka soo baxo dadka Soomaaliya maanta ciidan la'aan ma hayso waad ogtihiin ciidanka Soomaaliya meel kasta ay joogaan Puntland kaliya ayaa wax 10,000 oo ciidan ku dhow jooga 20,000 oo amisoona dalka jooga
tiro aan la qiyaasi karin. waxaan u malaynaa ciidamada Soomaaliya maanta ka howlgala marka la isku daro 100 kun kor bay u dhaafay. 5 kun oo wiil oo afka duuftay baa maara loo leeyahay ama 3 kun oo wiil oo ceeb Soomaaliya dowladnimadeedana ceeb ku ah, ciidanka Soomaaliyeedna ceeb ku ah. waxaan rabnaa in muddo yar oo kooban Puntland ay sambal u noqoto ama u noqoto wax lagu dayo oo la cirib tiro dhammaan cid sheeganaysa in ay tahay urur noocu doona ahaade. Puntland ma ogolaan doono ciidan aan ciidanka Puntland ahayn, magacuu rabo ha sheegto. mid qabiil ma ogolin, mid argagixisa ma ogolin, mid magacyo kale la baxa midna ma ogolin. ciidanku waa ciidanka Puntland. saasaa dastuurkuna faraya, saasaa dowladnimadana faraysaa. cid kasta oo ciidan kaleeto meel ku sheegta ha ogaato ciidamada Puntland ogolaan maayaan shaqaynka qabanaya. ninkii raba inuu ciidanka Puntland noqdo isagoo magac kale siin waa ciidanka Puntland ka noqdo. xuquuqda uu leeyahay waajib bay nagu tahay in annagana gudano. waxaan rajaynayaa dhallinyaradan dardaaranka macallimiintiina in siiyey oo runtii inay hagar baxay ayaa dardaaran inagu filan. inta ay ka sheegeen casharadoo halka qaadateen oo isugu jirta disciplineka iyo wadaniyadda iyo tacticada dagaal, intaas oo aad ka dhigataan hubka ugu horeeya oo aada leedihiin. dowladda Puntlandna agabka kaleeto oo ciidan inay dhammaystirto ayay diyaar u tahay. waxaan rajaynayaa dardaaranadan la siiyey oo dhan inaad weelaysaan, inaad suuradda dalka wax ka beddeshaan, inaad u diyaar garowdaan. ciidan la isku halayn karo, kala dambeyn leh, dowladnimada ilaaliya inaad noqotaan, idinkana aad sharaf ku noolaataan. waxaad ogtihiin ciidamadii inaga horreeyey markay waajibkooda gudan waayeen dayac fara badan baa haleelay. aad baan uga xumahay dayaca ciidanka ku dhacay, laakiin qayb badan oo ka mida iyagaa sabab u ah. maxaa yeelay iyagaa marar badan ogoleyn nidaamka, iyagaa marar badan ogoleyn in la soco, iyagaa ishuwan u isqarsaday, iyagaa maaragtay wax aan munaasab u ahayn ciidan waxay lagu yaqaanay oo kooxo kooxo iyo reer reer isu kala qaybiyey. marka eedda qayb bay ka yihiin duruufta adagay soo wajahday. waxaan rajaynaynaa Puntland inay ku filan tahay, ciidanka ku filan oo haddii si saxa loo helo inay Puntland miisaaniyadda hadda haysato ay ku filan tahay. adduunka iyo cidda Soomaaliya taageertana iyadoo ay arkayaan iyagoo waxba ku taageereen inay intaa qabsadeen. waxaan rajaynayaa iyagana dadka saaxiibada laha Soomaaliya inay garowsan doonaan oo ciidamada Puntland ay gacan dhab sii doonaan. waa ciidanka sida dhabta ah ula dagaala argagixisada, burcadbadeeda, burcaddiimeedka iyo dadka isku daya inay nidaamka dowladeed ay ka hor yimaadaan. intaba ciidamadan daqiiqadda waxaas dhacaan ayay ka howlgalaan iyagoo oonan madaxda sare ee siyaasadda amrin, ayay go-aano qaataan oo fuliyaan. runtii waa geesiyaal la isku halayn karo. in lagu hurdi karana waxaa muujisa 21 sano oo dowladnimo oo Puntland ay ku naalatay. waxaa sababay oo hiilgeliyey oo sugay waa ciidankeeda. ciidamadeedana hadda waxaan ka rajaynaynaa inta ka dhiman inay sidaas ku dhammaystaan insha allahu tacaala. waad mahadsantihiin. intaasaan kusoo gabagabeynaya.